عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta isku software cusub oo magaciisa loo magacaabo KJS insha Allah. Softwarekan soo downgradeynaysid waxaad tagaysaa Google ka tagaysaa kadib xaganaad ku qoraysaa KJS down interface-kii baa kuu soo baxay down KJS. halkan waxaa kuu soo baxay software-koogii website-koogii ayaa kuu soo baxaya. KJS-ka kii ugu dambeysay waa kan KJS waxaa la dhahaa 3.14 marka waa kii ugu dambeysay weeyaan imika soo baxay weeyaan ama KJS PI baa la dhahaa. haddii aad kan rabtid waad downgraysan kartaa waa kaas ku downgraysmaya laakiinse balse aniga igu jiraa. haddii kale aad rabtid kuwii hore in aad heshidna waxaad tegaysaa overrise baad tegaysaa kadibna waxaad tegaysaa KJS previews still available ayaad tegaysaa waa kuwa kuwii hore. okay imika waxaan guda galinaa website-keen waxaan guda galinaa software-kan guda galinaa KJS muxuu yahay. KJS waxa weeyaan waa software open source oo sida software-ka ArcGIS la mid weeyaan taasoo rag developer ay oo si bilaash ugu shaqeynaya ardayda oo kale ay sameeyeen oo markasta hagaajiyaan oo maxaan ku dhahay update ku sameeyaan si uu ardayda uga caawiyo. sababtoo ah software-ada kale sida ArcGIS oo kale waa lacag waana qaali weeyaan ilaa $100 weeyaan sanadkii. marka maadaama arday aad tahayna maxaan ku dhahday ma heli kartid marka waxay rag isku tagay oo maxaan ku dhahday si macaawinaad u shaqeynayo oo si mutadawacnimo u shaqeynayo ayaa isku tagay waxayna sameeyeen software-kan. okay haddii aan ku bilowno software-kan waa software aad muhiim ah oo waxyaabo badan leh oo waxyaabo badan laga helo oona kaa saacidaya in aad hawlahaaga ku qabsan kartid adigoo wax lacag aan bixin. okay xaggan haddii aan hore dul marno project weeyaan imika new project oo kale haddii aad iska bedelaysid waxyaaba ay ku yeeleen oo kale aad iska bedelaysid waa kaas. xaggan open haddii aad project hore oo kugu jiro kale haddii aad sameynaysid waad soo qaadan kartaa waa kaas. waa kaas sidaas project baad tagaysaa xaggan save as oo kale save oo kale waxaan oo dhan xaggan import oo kale haddii aad markii aad mapkaaga dhamayso kale export baad sameyn kartaa oo waad export gareyn kartaa ama PDF ama format PNG baad ka dhigi kartaa. xaggan mise en page-kii waa markaad sameynaysid mapka mise en page-keygii editing xaggan waxyaabaha qaar markaad sameynaysid cut-kii baa ku jira copy-gii baa ku jira paste-gii baa ku jira waxaas oo dhan baa ku jira. view-ga xaggan waa markaad wax zoom in zoom waxaas oo dhan déplacer nouvelle view 3D mapka cartography 3D waxaa markaad sameynaysid weeyaan. coachka xaggan waa markaad soo qaadanaysid coach jadiida new sharp file oo kale markaad soo qaadanaysid weeyaan. xaggan preference-kii oo waxyaabaha qaar oo aad ka option-ka oo kale aad ka wax iska masaxaysid waxaad iska waxaynaysid weeyaan. halkan kale extension oo kale waa aad u muhiimsan tahay waayo waxay kaga duwan tahay maxaan ku dhahday ArcGIS extensionadeeda oo dhan way wada yihiin balse laakiinse kan waad soo downgraysan karaysaa extension-ka waad soona qaadan karaysaa waad zip baad kasoo dhigan karaysaa waxaa insha Allah etapa baan arki doonaa insha Allah. xaggan kale waa vector marka waxa ku jira utiiladii oo dhan geotreatment-kii tamponkii katkii coupegii envelope-gii difference-gii intersection-kii waxaas oo dhan baa ku jira oo ugu muhiimsan utiiladii ugu muhiimsan intersection-gii coordonnées moyennes statistiques-gii waxaas oo dhan baa ku jira. gestion des bases de données waa xaggan fusionning labadii kuush markii la isku waxayna reproject in kuush markii kuush dib looga bedelayo waxyaabaha oo dhan. xaggan rasterkii kadalika waa rasterkii ayaa ku jira calculatrice-kii rasterka image-ka loogu calculatrice-eynayo waxaas oo dhan baa ku jira. xaggan base map-kii waa database-kii weeyaan database-kii oracle-kii portuguese-kii SQLite-kii waxaas oo dhan baa ku jira. xaggan internet-ka waa markii aad u baahan tahay inaad soo qaadatid image internet ku dhex jira. treatment-kiina waa
isagana kadalika markaa wixii oo dhan markaad tirataysid kadib ayaad xaggan kala socon kartaa storygiisii oo kale waxyaabihii aad samaysay oo kale xaggan kala socon kartaa xagganna waa waxa weeyaan documentationkii iyo waxyaabaha wixii aad u baahnayd oo dhan ayaad xaggan ka arki kartaa proboga oo kale sponsor KGS-ka ciddii sponsor garayso oo kale waxyaabaha oo dhan baa ka arki kartaa runtii intaasuu noogu eegyahay maanta maxaan ku dhahday videogeenan insha allah videoyaal kale intaan isku kulmi doono waxaan ii rajaynayaa khayr